wax walbo halkan ay ka bilowdeen. Koox tuugo xirfadley ah ayaa qabsaday Royal Mint. Saacadii waxaa la daabacayay 8 milyan oo euro ah oo lacag gaar u ah iyaga. Warkaan idin bayaansha saaxiibayaal. Maskaxda guud ee qorshahan waa mid ka qarsoon dhammaan laamaha ammaanka. Waxaana intaas dheer, qorshahan waxa uu ka balaaran yahay sida uu qof kasta filan karo. Lacag aad leedahay daabaco kadibna isaga tag adigoo ka qarsoomay dunida. Balse hadafka guud waa inaan waxba la dilin, waxna la dhaawacin. Waxay sheekadaynu ka bilaabatay gabadhan oo ku toosay codka qaylida booliiska ee TV-geeda uga shidanaa iyadoo naxsan. Waxa hore uga dhicisoobay qorshe dhac bangi, halkaasna waxaa lagu toogtay lamaanaheeda. Hadda waa qof wanted ah. Dhammaan gudaha Spain waxaa lagu dhajiyay sawiradeeda. Hooyadeed ayay halkan ka wacday, iyada oo hooyadeeda ku tiri imow, balse waxaysan ogeyn in guriga ay booliisku ku sugayaan. Waxa si lama filaan ah soo dabagalay gaari, wuxuuna ahaa nin u sheegay haddii ay tagto gurigeed aysan dib dambe u soo bixi doonin. Wuxuuna tusay sawirada gurigooda oo booliiska ku sugan, isagoo intaas ku daray inuu hayo heshiis xatooyo, isagoona u ballan qaaday lacag dhan 2 bilyan iyo 400 oo kun oo euro. Waxay aqbashay heshiiska, waxaana bilowday qorshaha iyo tababarka. Professorka waa madaxa qorshaha dhaca, wuxuuna soo xulay koox uu diyaarin doono dhaca bangiga Royal Mint 5 bilood ee soo socotana. Dabcan waa waqti ku filan qof kasta. Wuxuu geeyay guri ku yaal banaanka magaalada, wuxuuna uga waramay faahfaahinta qorshihiisa. Professorku wuxuu wax walba uga fikiray si taxadar leh ilaa faahfaahinta ugu yar, si xarfaanta tuugada ah iyo caruurtooduba aysan ugu khasbanaanin inay mar dambe shaqeeyaan. Digniin: ma jirto xog gaar ah, mana jiraan xiriiro jacayl. Qof walba wuxuu la baxay magacyada magaalooyinka. Waa Tokyo. Qofta ugu horeysa ayaan ka soo bilownay sheekadeena. Maskaxda guud ee qorshaha waa Professorka. Ku-xigeenkiisuna waa Berlin oo horey u galay 27 dhicis waaweyn oo caalamka. Waa Moscow. ninka ku wanaagsan macdan qodista, wuxuu xitaa ku xildheer yahay qalabka birta guba iyo qalab kasta oo warshadeed, kaas oo uu awoodo inuu jabiyo dukaamo iyo bangiyo. Waana ninka loo idmay inuu furo albaabada kaydka bangiga. Waa Denver, wiilka Moscow. Isagana wuxuu qayb ka ahaa dhaca, wuxuuna ku wanaagsanaa lafa jabinta. Dagaalyahan ayuu ahaa. Isagu ma ahan qof wax bartay, laakiin waa cabtooy. Rio oo ah kan ugu dhow Tokyo, waana qabiirka tiknoolajiyada dunida. Wuxuu awoodaa inuu jabsado xogaha bangiyada iyo deminta alarmiyada, wuxuuna ku dheeryahay hacking-ka. Waana wiilka ugu yar kooxda. Helsinki Oslo waa militariga kooxda, waana 2 mataana ah. waxay tusaale u yihiin xoogga ciidanka oo dagaalyahan ah. Nairobi waa madaxa daabacada lacagaha, waxay ku wanaagsanayd been abuurka lacagaha daabacan. Hawshaas waxay soo bilowday 13 jirkeeda, sidaas darteedna kooxda dhexdeeda iyada ayaa mas'uulka ah tayada iyo quality-ga lacagta. Ugu dambeyntii, Professorka laftiisa ma lahan diiwaan dambiyadeed, ma leh dukumenti, ma lahan raad raac. Qorshihiisu wuxuu ahaa inuusan xadin lacag qof gaar ah iska leeyahay, taasoo dadka caadiga ka dhigaysa inay la saftaan tuugada. Wuxuu ballan qaaday inay noqon doonaan geesiyaal dadka hortooda, isla markaana dhicistoodu ay ka hadli doonaan dhammaan warbaahinta caalamka. Waxaana noqonaynaa buu yiri hero dadka dhankooda, laakiin si taas loo gaaro, 1 dhibic oo dhiig ah lama daadin karo. Haddii kale waxaan noqon doonaa dilaayaal bahalla ah. Qorshuhu fudud yahay marka afka loo fiiriyo, adigoo hubota gala kadibna lacag aad idinku leedihiin daabacda, kadibna isaga soo baxa. Laakiin waa un afka, fulinta ayaa ka duwan sidaas. Saacadaha soo socda waxaa gudaha loo geli doonaa Royal Mint. Kanaalku waa kanaalkaagii. Haddaad intaan la soo gaartay, fadlan subscribe-taada iyo like-taada haynaga xasdin. Kadib bilooyin diyaar garoob ah, kooxda oo xiran dhar casaan iyo wejiga maaskara Salvador Dali ayaa shaqo bilaabay. Professorku wuxuu ogaa hal wado oo keliya oo lagu geli karo Royal Mint, waana gaariga weyn ee yimaada asbuucii mar, kaasoo sida waraaqaha lacagta lagu daabaco. Waxay isticmaali doonaan gaarigooda oo ka buuxa 3 tan oo qalab iyo hub ah. Kooxdu waa inay gudaha ku galaan gaariga xamuulka ah oo gelaya Royal Mint, kaasoo sida waraaqaha cusub ee lacagta lagu daabaco. Si ay u qabtaan gaariga loo gol yahay inuu gudaha u galo Royal Mint, waxay iska dhigeen inay yihiin booliiska qaranka. Kooxdu waxay jareen dhammaan xiriirada isgaarsiinta, waxay jareen wadada, waxayna joojiyeen gaariga booliiska ee ilaalinaya xamuulka. Berlin iyo koox kale ayaa xirtay dharka booliiska. Dhanka kale, fursad muhiim u ahayd Professorka, waana mid ka mid ah ardayda soo booqatay Royal Mint ee baska saaran ay target u tahay. Dabcan ardaydan ayaa u yimi hab dalxiis ah. Gaariga booliiska ee Berlin la socday wuxuu ka gudbay barta hubinta, wuxuuna
wuxuuna galay gudaha Royal Mint. sidoo kale ardayda ayaa iyagana soo galay gudaha madxafka si la mid ahna Tokyo iyo Nairobi oo iyagana dhinac kale ah ayaa iyagana ka soo gudbi doona dhanka baaritaanka. wax walba waa sidii la rabay, qorshaha ayayna wax walba ku socdeen. xoogaa kadibna Rio wuxuu kooxda u sheegay in alarmiga la jaray, isla markiina wiishashku ku soo dhawaadeen gaarigii xamuulka. kooxdii dharka cas xirneed iyo maaskigii Dali ayaa ka soo wada daatay gaariga xamuulka, isla markiiba waxay la wareegeen shaqaalihii amniga iyo rayidka, waxayna bilaabeen inay ka xiraan gacmaha dhulkana seexiyaan. kooxdii ayaa bilaabay inay wejiga uga xiraan maryo madow, sidaas ayayna kula wareegeen xarunta oo dhan. Barlin wuxuu maxaabiista siiyey raaligelin, isagoo ku adkeeyay inaanan cidna waxyeelo loo geysan doonin. hase yeeshee qof walba oo halkaas joogane waxaa laga qaaday taleefanka. halkan waxay si guul leh u fureen Moscow iyo wiilkiisa sanduuq weyn oo lacag ka buuxdo. Denver aad buu ugu farxay, wuxuuna ku faanay isaga iyo aabihiisa inay yihiin kuwa ugu fiican, laakiin Moscow ayaa u sheegay inaysan weli guuleysan, waana qorshaha profesorka. haddii qorshuhu guuleysto waxay noqon doonaan taajiriin inta noloshooda ka dhiman. 20 daqiiqo kadib markii ay gudaha galeen, kooxdu waxay xiriir la sameeyeen analog profesorka. gudaha lagama hayo xog, albaabadu way xiran yihiin, alarmiguna shaqeyn maayo, qofna ma oga in warshadii lacagta Spain la qabsaday. intaa kadib saaxiibayaal, hadda profesorku wuxuu amar ku bixiyay in la diyaariyo qorshaha albaab furidda, alarmigana dib loo shido. qayb ka mid ah kooxdu waxay istaageen iridda hore iyaga oo sita boorsooyin lacag iyo hub dhammaystiran. maxaabiistu ma garan karaan waxa socda. madaxa Royal Mint ayaa isku dayay inuu dadka dejiyo. xoogaa yar ayuu iska qaaday maaskaraha, wuxuuna arkay boorsooyinka lacagta ee kooxda, wuxuuna u qaatay in tuugadu ay baxayaan oo wax walba hagaagayaan. kooxdu waxay xasuusteen tilmaamaha profesorka. arrinta ugu muhiimsanna waa inaan booliisku fahmin waxa dhab ahaantii socda. waa inay aaminaan in qorshuhu ahaa dhac caadi ah. marka rasaastu bilaabato, kooxdu ma yeelan doonto doorasho aan ka ahayn inay dib ugu laabtaan gudaha madxafka. booliisku waa inay u maleeyaan inay ku xayiran yihiin halkan. 2 daqiiqo gudaheedna booliiska ayaa soo gaari doona madxafka, laakiin Tokyo ayaa horey u dhaqaaqday waqtigii loogu talagalay oo aan la gaarin. qorshuhu wuxuu ahaa banaanka u bax, lacagta iridda dhig, rasaastuna hawada urid, kadibna soo noqo. laakiin profesorku ma uusan siin amar ku saabsan waxa la sameynayo, haddii booliisku xabad toosa ugu soo ridaan iyo haddii ay rabaan inay toogtaan. booliiska isla markiiba waxay dhaawaceen Rio, halka Tokyo oo careysanna ay rasaas ku furtay booliiska. Denver iyo Nairobina ayaa kadib xiray iyaga, rasaasna ku riday booliiska, waxaana halkaas ku burburay sharcigii ahaa inaanu dhiig daadan, qofna dhiman, laakiin wax dhib ah ma gaarin, wuuna ka badbaaday. laakiin halkaas ay kooxdii ku canaanteen Tokyo iyadoo loogu yeeray profesorka, si kibir lehna ugu jawaabtay. intaas kadib saaxiibayaal, profesorka ayaa si toos ah Tokyo u weydiiyey inay xiriir gaar ah la leedahay Rio, waxayna ku jawaabtay maya, balse waxa ay sheegtay inay kaliya ilaalinaysay saaxiibkeed. dhanka kale, dambi baare Raquel ayaa goobta timi iyadoo la socota warbixin ku saabsan dhacdada, laakiin ma lahan kaamirooyin. xitaa xarigii fiber optiga ayaa la jaray si aanan loo jabsan. Rio ayaa lagu amray in gabadha targetka u ah profesorka inuu geeyo xafiis gaar ah, uusanna ka tegin daqiiqadba ha ahaatee. ugu dambeyn, waxaa xiriir toos ah wada yeeshay Raquel iyo profesorka, wuxuuna weydiiyey xaaladda dadka dhaawacmay. wuxuuna aad ugu farxay inuu maqlo in dhammaantood nool yihiin, wuxuuna ka cudur daaray codkiisa, wuxuuna dalbaday helikabtar si ay ugu baxsadaan Brazil. si lama filaan ah ayuu weydiiyey waxa ay Raquel xiran tahay. profesorku wuxuu codsaday in kooxdiisa la siiyo waqti, sababtoo ah dhowr daqiiqo oo kaliya kuma filna inay baxaan. wuxuu sheegay inay hub xoogan wataan, balse aysan rabin dhibaatooyin, sidaas darteedna way fiican tahay in aad looga fiirsado ficilka qaar. taasoo ula jeeday maxaabiista. Raquel waxay amartay helikabtarada inay dul wareegaan goobta si ay tuugada cadaadis u saaraan. Cornelki ayaa wuxuu ku adkaystay in weerar la sameeyo, Raquelna si adag ayay uga soo horjeesatay, sababtoo ah weerarku wuxuu keeni karaa dhimashada maxaabiista. dhanka gudaha, Rio wuxuu ilaalinayay gabadha. helikabtaradii ayaa dul wareegaya goobta, halka saqafyadana ay saaran yihiin sniper si ay u toogtaan tuugada. intaa kadib saaxiibayaal, hadda Barlin wuxuu amar ku bixiyay in maxaabiista dhammaantood iska siibaan weji xirka, wuxuuna ku dhawaaqay in xaalad lama filaan ah dhacday. laakiin inkastoo helikabtaradu dul socdaan, haddana maxaabiista ayaa loo ogolaaday 2 saacadood oo nasasho ah. wuxuu sheegay in la qaybin doono bacaha jiifka, cunto iyo biyo. waxaa kale uu codsaday in qof walba uu xirto isla dharkii casa ay iyagu wateen. wuxuu yidhi wax kasta waynu qaybsan doonaa. dhanka kale, Raquel waxaa loo sheegay in booliisku aysan raadin karin wax calaamada ama raadiye ama taleefan ah. waxay la yaabtay sida tuugadu ula xiriirayaan hogaamiyahooda, balse markii ay banaanka u soo baxday waxay aragtay gaadiid hubeysan oo ciidamada gaarka ah oo gudaha Royal Mint galaya. aad ay uga xanaaqday, waxayna
mar kale u sheegtay korneelka inaan weerar dhici doonin, laakiin korneelku wuxuu u sheegay in amarku ka yimi madax sare sababtoo ah qof aad muhiim u ah ayaa gudaha ku jirta. Alison Barker, gabadha safiirka Britain, saaxiib dhowna la ah boqoradda England, saas darteed ciidamada militariga ma haystaan ikhtiyaar kale oo aan ka ahayn inay weeraraan. Haddii kale adduunka oo dhan ayaa beri ka hadli doona. Intii ay ku jireen tababarkooda, profesorka ayaa sawirka gabadha tusay kooxda, wuxuuna u sheegay in weerar qasab ah ay soo qaadi doonaan, balse targetkeena waa gabadhan ayuu yidhi. Booliisku waxay u qaadan doonaan in tuugadu aysan ogeyn qofka muhiimka ah ee maxbuuska ah, waxayna kalsooni ku qabaan inay bulshada ka qarin karaan. Sidaas darteed ciidamada gaarka ah waxay geli doonaan dhismaha habeenka ugu horeeya ka hor waaberiga. Hadda sidii uu profesorku saadaaliyay, korneelku wuxuu ku qanciyay Raquel inay qasab tahay in gudaha la galo si gabadha loo soo badbaadiyo. Gudahana maxaabiista dhammaantood ayaa loo xiray dharkii cas ah. Kooxaha weerarka ayaa si buuxda u diyaarsanaa. Gudaha madxafka taleefan ayaa soo dhacay, profesorkuna kaamaradaha ayuu shidan yihiin, wuxuuna kooxdu ku wargeliyay in iswaa diyaar u yihiin inay soo galaan. Barlin wuxuu maxaabiista u sheegay in waqtigii yimi oo ay qasab tahay inay raacaan amarkiisa. ciidamada qaranka waxay u dhaqaaqeen sidii loo qorsheeyay. Ciidanku waxay qorsheeyeen inay ka galaan 4 jiho: albaabka weyn, kan xamuulka, albaabka degdega iyo saqafka. Tuugadii ayaa saf ugu jira albaabka, iyagoo sugaya inay gudaha soo galaan. Markii amarkii weerarka la bixiyay, ciidamada gaarka ayaa derbiga dalooliyay, waxayna dhexgeliyeen kaamaro. Halkaas ayna Alison Barker khadka taleefanka ugu sheegtay wax walba, iyadoo ku tiri ha soo gelina, waxaan sidanaa dhar la mid ah kuwa tuugada, iyadoo si toos ah warbaahinta loogu sii daayay. Isku daygii militariga ee ahaa in la joojiyo wicitaanka gabadhaas waa fashilmay. Gabadhii waxay sheegtay wax gudaha ka socda. Maxaabiista iyo tuugaduna dhammaantood waxay xiran yihiin isla dharkii casaanka ahaa, waxayna wataan qoryo iyo wajixir. sidaas darteed cidna garan mayso yaa maxbuus ah yaa tuug ah. Waxayna ka codsatay inaan dhismaha la weerarin sababtoo ah booliisku ma kala saari doonaan cidda dambiilaha ah iyo cidda aan waxba galabsan. Booliisku waxay heleen sawir muujinaya dadka oo dhan oo u labisan si isku mid ah. Raquel aad ayay la yaabtay, sidaas ayayna tuugadii waxay ku heleen guushii ugu horeysay maskax iyo xeelad iyadoon xabad la ridin. Nairobi ayaa u yeertay khubarada lacagta daabici jiray in mashiinadu shaqeeyaan 24 saac maalin iyo habeen, mana jirto nasiino. Waxaa la ogol yahay oo kaliya inay joogsato 3 saacadood si qada loo bedelo. Dhanka kale, Raquel Oniya Jabson oo fadhida baarka kafeega waxay rabtay inay wacdo xaafadda, laakiin taleefankeeda dabka ayaa ka dhacay. Laakiin nin dhalinyaro ah oo kiyaal xiran ayaa u soo jeestay oo ku yiri mobilkayga ma isticmaalaysaa, wayna u mahadcelisay. waxayna ka qaadatay taleefankiisa, waxayna fariin u dhaaftay iyada hooyadeed iyo madaxa booliiska. Markii ay taleefankii ku celisay ninka dhalinyarada ahaa oo ay damacday inay baxdo, isaga ayaa u tilmaamay shaashada TV-ga in wejigeedu ka muuqdo warka kooban dhaca maanta socda. tuugada iyaga ayaa u baahan waqti, halka dhacyada sidan ay booliisku u baahan jireen waqti. Bartamaha Madrid gebi ahaanba waa la xiray. Telefishinada toos ay u tabinayeen habeen iyo maalin. Booliisku dadaal kasta ayay sameeyeen si ay u helaan jid ay ku qabtaan tuugada lacagta daabacanaysay. Waqtigu waa lacag 8 milyan oo euro ah ayaa saacadii la daabacanaya. Profesorku wuxuu gacanta ku hayaa raadiyaha booliiska iyo 18 kaamiro si haddii isku day dhaco uu la socodsiiyo asxaabtiisa. Mid ka mid ah tuugada ayaa wuxuu soo saaray gabadh loogu yeero Monica si ay fariin ugu dirto dunida, taasoo mar kale ku sheegtay in dhammaan maxaabiista ay wataan labiska cas iyo wajixirka daali. taas micnaheedu waa in weerar kasta sababi karo musiibo weyn. Sniperka ayaa arkay tuug taagan Monica agteeda isagoo ku hagaya waxa ay sheegayso Monica, waxayna dalbadeen ogolaansho ay ku toogtaan, laakiin fasax uma helin. Barlin wuxuu doortay rag maxaabiista ka mid ah si ay shaqo culus u qabtaan. Ragga maxaabiista ayaa loo kaxeeyay qolal hoose, halkaas oo Moscow uu ku siiyay tilmaamo. waxaa lagu qasbay inay jebiyaan shubka dhulka iyagoo isticmaalaya dube culus, hoosna uga dhacdhacaan 48 mitir oo marin ah si ay u gaaraan bulaacada. Markay shaqadooda dhammaystiraan, waxaa laga mamnuucay inay dadka kale u sheegaan waxa ay qabanayeen. Daabacadda lacagtu si joogto ah ay u socotay iyada oo aan xakad la gelin. 20 saacadood gudahoodna waxaa la daabacay 52 milyan, waxaana gudaha kooxda ka dhashay kalsooni badan oo ay ku qabeen inay guuleysan doonaan. laakiin tani waa riyadoodii ugu weyneyd. talow ma rumoobi doontaa? Saxbiyaal muuqaalkeena maanta waa intaas. Haddii aad sugayso qaybta labaad, fadlan subscribe iyo like ha ilaabin. Waan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontid. Until we meet, bye bye.